warsame dhalayna cabdirasaaq maxamed cabdulaahi ilmaha yar yarkaa luul cabdilcasiis ay dhashay awowgood ah maxkamadda sare ee dalku dukumentigii waa iga qaban weysay wax macaamilo waa ila samayn weysay xukunkii xaqa ilaahay waa diiday marka waxaanu sheegaynaa waxa la leeyahay wixii arrimaha ku shuqul leh ama caalamka inaanu ku dulmanahay haddaan ahay aabbaha dhalay cabdirasaaq maxamed cabdulaahi ilmaha yaryarka ah ee luul cabdilcasiisna aan awoowaha u ahay sharciga islaamka wuxuu ogol yahay ayaan ogolahay ma ogoli in ilmaha ninna hooyadoo dilo ninna xaqoodii u diido ma ogoli marnaba ma ogoli ma qaadan karo marka maxkamadda sare dokumentigaygii waa laga diiday aabbaha dhalay cabdirasaaq maxamed cabdulaahi yaan ahay iskan waxaan awoowaan u ahay ilmaha wiilkaygaa dhalay dokumentigii aan qiimka ku ahaana waa laga diiday ujeedadeeda wuxuu ahaa inaan u helo sharciga islaamka ilmaha haa xaquuqday leeyihiin haa ilmaha yaryarkaah luul cabdilcasiis dhashay ayaan awowgooda waxay yeelanayaan in laga qaybgeliyo oo ilmaha laga tixgeliyo haddii la gaarsiinayo markay qaangaar noqdaan iyo haddii wax xugun u dhacayo marka arrintaasi ma dhicin maya xukunkan wixii cabashaa waa soo dhammaadeen saan u malaynaya laakiin inaan cadaaladi jirin intaasa maya ma ahan sax anigu diyo ma qaadan karo dhiigga ma lihi anigu laakiin ilmahaan leeyahay waxa i daba dhigay ilmuhu hooyadood waaye waa hooyadood abbahood waa dhintay hooyadiina waa dhimatay hooyadood xaqay ku leeyihiin waa intaa sharciga islaamku wuxuu u ogolaado bas waxaan u rabay inay maxkamaddu maxkama islaamiya ay sharci islaamka ay xukunto u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamula abka dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo deg App Store